dhibaatooyin mahadda ah oo ku reebay cudurka kaduudiyaha qoysas badan ayuu martay ama uu saf ka maray waxaana dhaqaatiirtu ay ku talinayaan in ay dadku ku degdegeen isticmaalka dawooyin iyagoo aan xaqiiqsanin nooca xanuunka ay haya Dr. Ciise Khaliif Cibaar oo waraysi siiyay idaacadda Kulmiye isla markaana ka tirsan dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada Muqdisho ayaa talooyinkan ku bixiyay in lagula tacaalo cudurka kaduudiyaha. wallahi horta kaduudiye waa markii saddexaad oo Soomaaliya lagu arkayo waligiisba waa 8 sano ka hor ayuu ahaa afar sano ayaan cimilada ku soo laabtaa waa garta marka ma ahan wax si soo taagan oo loo yaqaan hebel waa garta laakiin qofka waxaa lagu arkayaa qandho aad u fara badan waxaa imaanaya joint pain imaanaya lafa xanuun imaanaya madax xanuun imaanaya malaria iyo markii baaritaano lagu sameeyana waxaas oo qofku wuxuu ka noqonayaa negative waa gartay soo markaas waxaa marka magacaan lagu keenay qofku uu jareynayaa qandho zaid ah qabanayso lugihii iyo gacmihii waa soo laamayaan kaduudiye saasa loo yiri maadaama qofka lugihii gacmihii ay laamayaan taas erayga halkaas uu ka yimid marka Soomaaliya u baxsatay mise waa eray oo common ah adduunyada laga yaqaan waa eray Soomaali ay leedahay ma ahan eray common ah oo ku jira laakiinka caafimaadka ma ahan waa gartay hadda عاوضات أنا قدام بيسمى قان سبح كيس إلى أفريقيا أيام هيك يعني وحنو كاس عندنا وحن تبين كبرنا والله قرية مثلا وحلقوا هنا إنه خبيث بران سمعيه وحلقوا هنا إن كل كبرنا غير عليه إن هو كبرنا وهذا كبرنا لو تقول هيا لك يريه إن في قبول وسيو إن كنا على جال تكلموا أكثر وايد لو إحنا قرية نورمال كيس marka waxa tiri waa tira koombo Soomaali lagu arkay ilaa 3 jeer maxaa keena muxuu ku yimaadaa wallahi aniga kulli ciisaantayda markaan cilmigayga la sheekaysto waxaan aaminsanahay climate exchange inuu ku yimaado oo saahayn viral disease taagan oo leeyahay bacteria hebel keenta waa gartay marka cimilada markii change uu ku dhaco oo ciidan sababka kale isbedelaan dirkamkii wax walba yimaada subanada kale xilligeeda aan dadrin kartaa waxaana kala guurka waa marka calaamadaha hadda aad tilmaamtay qandhada iyo lafa xanuunka ma jirtaa cudurro kale ay isu muuqaal eegeen ama ay isu calaamado eegeen sida malaria oo kale dadka qaar way isku qaldaan dawey qaataan iyaga aan ogaanin excellent waxa lagu leeyahay qofka malaria haysto oo iyaga la gaarin heerkiisa waa gartay la baaraya qaarna positive noqonaya qaarna negative noqonaya marka qofkii dawo cuna ka war isagoo aan ogaanin wixii hayo kaniyaa caadi iska isticmaalaa dawooyin wallahi 100% dadku waxay aaminsan cirbada ay faafiya ka qabaan oo ay aaminsan qofkii cirbad lagu diro inuu dhimanayo waa gartay marka mostly waxa la siiyaa tabletka paracetamolka adigu dadaalna iyo kaniinada anti inflammation benka sida diglovanic oo kale indemedicine oo kale yani maxaa la dhahaa takamol kaniin ilaado hadda casri oo maadooyinka dama hadda la soo sameeyaa oo saddex daawo ka sameeysan oo combination waxaa qofku markuu qaato normalkiisa uu ku salaata marka dawo u daran ma jirtaa oo qofku markuu kaduudiyahayo ay tahay in laga ilaaliyo mise wax kasta oo iska isticmaali kara qofka isagoo hadii hore u xanuunsan kaduudiyahayo u daran kaliya qofka waxa la sii karo waxyaabaha oo sedation ka keenayo qofka daawooyinka dejinayo kale ama sida diyaanka banka kale hurdo iyo waxaas qofka gelinaya waxa uu galayaan noocyadaas in la siiyaa sax maahan laakiin inuu qandadaas la dagaalamo qofka si uu relief u helo oo caadigiisa uu hurdo paracetamol indemedicine diglovanic and so on waxba anti inflammation benka ayaa must u ah in lagu dardaarmo waya marka ka hortag mala Sooma waa un wax no ka hortag hal ma jiraan waa hadii la ogyahay inuu soo socdo waxa way difaaciisa daawo tayada loo sameyn lahaa Sooma waya ma la isqaadsiyaa mise waa wax la isku daarta ama la iska qaadama ma wax la iska qaadama waa nature calaamati maada Soomaaliya ma kala ayaa mostly waxa la dhahaa guri hadii lagu wada haayo oo qandadii aanu geerisay oo kii kale lagu xiro kala meeydi inay ay ka raacaan oo transmission u dhaco laakiin aniga I don't think so in wax saacada u maleemayo laakiin badana way dhacdaa doctor in caadiyan halkii xaafad uu galabo dadku uu wada marto way dhacdaa maxaa u sababa wallahi waa dabeecad cusub way hadda aniga ciyaalkayga barna dadka hore ku dhacay barna dadka ku dhacay hay wallahi maanta ka taaganahay 6 days maanta ayaa hay waa aniga kula hadlayo way so waxaan qaato kaliya waa paracetamol
وانا شقيسناي سنين شقدي انا كسو عرراyo guriga soo carraray ma gartay maxaa keenaya marka xanuun baa u soo cararays xanuunkan ka soo carraray waayo dabeecadii ka horeysan dulqaad badan markii dadkii su'aalo badan ay ku weydiinayaan wax badan ayaa laga rabaa inoo ay daawooyin ka wareystaan cudurro ku sheeganayaan inta shaqo u qabanayso marka adiga dulqaadkaas aan qofka ku dhigaysanayso ma haysid wax raadada ma ku reebanaya qofka markii uu ka bogsado aad waxa ugu horeeyo ku reebana waxa way qofka kastiga cuntada ay ka dhumaayo hay hada kuma hadlaayo waxa way for sigay farmaya hada jilbaha ma fariisanayo jilbaha xanuunayo hay waxa ka dhumaayo qofka cuntada ma qaadan karo hay waxa laga ilaalinayaa waxyaabo difanka badan loo kale hay marka waa iska leenahay waa qadar Allah ma shaaf ilaahay kan waa lagu xamdinaa ma sha Allah waa ugu dambeyn maxaa kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo hadda la dhacaya cudurkan kadoodiyaha waxaan kula talinayaa inay aad uga taxadaraan inaysan ku degdegin daawooyinka qaarkood inaysan ku degdegin baaritaan la'aan inaysan ku degdegin inay wax si go'an aan aniga malaria ama aniga malaria haysaa daawo degdeg ah la siiyo inay aad uga taxadaraan oo loo keergareeyo inta jeer canugaas habeenkaas qabato calaamadaha imaanayo qarqariye ma imaanayso qufac ma imaanayo qandho ma jirto ma la doonayo qofkii ma tagay in calaamado badan la ilaaliyo wixii ka dambeeyana si tartiib ah dadka professionalka ay u xariiraan kaasi waxa uu ahaa Dr. Ciise Khaliif Cibaar oo ka mid ah dhaqaatiirta ku nool magaalada Muqdisho oo waramay keenin qaybta dambe barnaamijkan soo gaarnay bankiga dhexe ee Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka bankigaas waxa ay qoraal ay soo saartay ku amartay bankiyada sida gaarka loo leeyahay ee private banks la yiraahdo ee dalka ka howlgala in ay xiraan oo ay joojiyaan akoonnada ay ka dhax furteen shirkadaha sarifka lacagaha ee internetka ku shaqeeya ee forex-ka waxa ayna soo saareen ama ay sheegeen in go'aankaasi uu ka yimid kulan ee golaha bankiga dhexe ay yeesheen maamulka ugu sareeyo arrintan ayaa ka dambeysay hadalhayn dhowrkii cisho ee la soo dhaafay baraha bulshada internetka qabsatay taas oo ku saabsaneed dhaliilo loo jeedinayay shirkadaha forex-ka laakiin milkiilayaal iyo shaqaale ka tirsan shirkadahaasi oo hadlayba waxay sheegeen in ay yihiin dhalinyaro isu tagtay oo dalkan inay u shaqeeyaan dhalinyaradana shaqo abuur u sameeyaan u fikray dad badanna ay maalgelinayaan sidii propaganda ama warar aan sax ahayn loogu abuuri lahaa oo ganacsiga loo baabi'in lahaa markan saaxiibayaal waxa ku soo haddaad doorataan waxa number 1 ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal shabaab baa meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen waxaan bedelaynaa oo kale in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo baabuurtan qarxaya maalin walba waxa wax looga qaban karaa 1 milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay 100,000 oo dollar in la siiyo hadii uu rabna dibadda loo diro waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteelo hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga ka mas'uul ah annaga ilaalin in weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelaynaa oo kale dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo waxa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuqmaasuq inaan la dagaalno siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuqan wuxuu yahay cadowga horumarka ilaa musuqmaasuq macnaheedu waa tuug weey haddaad doorataan musuqu waa targetkayga ugu horeeya weey waa la dagaalameynaa si foolxunna waa la dagaalameynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala ummadana waa ku ceebeenaynaa xabsi dheerna u direynaa arinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khiyaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weey haddaad doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogto oo u qorina